waxaan rabaa dardaaran kooban inaan u diro madaxda xamar ku shiraysa arintaas in marar badan laga hadlo waxa keenaya diintii iyo dalkii iyo dadkii intuba khatar bay ku jiraan in laga hadlaa marka waa waajib qof kastoo ka hadli kara arintaas lagamana aamusi karo qofka ka hadlayana ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayuu dimadiisa ka bari yeelay qowlkii ku toosnaa oo xaq ah inuu cadeeyo kii isagoo ummadda iyo dalku waxa uu ku jiro ka hadli kara oo maslaxada ka hadli kara ka aamusana waa xaq ilaahay uu ku leeyahay oo ka aamusay allah musta'aan ugu horeyn nimanka siyaasiyiinta xamar isugu tagay ilaahay horta waxaan uga baryaynaa qalbigooda ilaahay inuu iswaafajiyo waxa iyagana u dana mujtamaca Soomaaliyeed dad ay ugu jidho dan dal iyo diinba ilaahay ha waafajiyo subxaanahu wa ta'ala in la midoobo oo la heshiiyo waa waajib diini ah الله وأطول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق إلهي إلا ولا قبصده إن لم يذوبه إن لك لتقين واجب ديني إلهي نفري سبحانه وتعالى سيدوك الله وأطول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ولله كعبصده ضضوا وحا إذن كدحينا كهشية إلهي سبحانه وتعالى مركوا واجب ديني إنه هشيان وإنه هشين كران وحين كهشينيان mujtamaca iyo shacabka Soomaaliyeed dhiban dani ugu jidho adduunkooda iyo aakhiradooda madaxaasi waa inay ogaadaan shacabku khilaaf uma dirsan waxay u dirsadeen midnimo dawladnimo ayay wakiil uga yihiin wakiil uguma aha inay iskhilaafaan oo kala tagaan oo dalku maanta meeshu yaallo inay dhigaan waa wax iyaga u gaar ah cid ay wakiil uga yihiin ma jidho runtii shirkaani waa aakhiru fursa la qadar Allah shirka hadii loo kala tago maxaa iman kara sunnada ilaahay cidna ma naasnuujiso cidii iyagu heshiin weyda cadowgooda qabsada waynu aragnay bilowgeedii qaar kamid ah ummadii Soomaalida yahuud waxaan ku u galay oo yahuud isu dhiibay inta kalena hadaan la heshiin iyaguna inay meel xun ka dhacaan bi khatar uga sugan yihiin waana sunnada kowniga ah oo taariikhda soo marday cid walba iyagu ay heshiin weyda cadowgooda inay qabsadaan marka waa fursadii ugu dambeysay maanta inay heshiis gaaraan haddii heshiin waayaan cabsi weyn baa jira runtii oo cid kasto wax garan kada maanta ay qabto ilaahay baan ka maangalay wixii sharax subhanahu wa ta'ala waynu ognahay mideeda kale caalamku meesha uu marayo qofku waa inuu ku cibar qaataa waxa hareerihiisa ah dhamaan wax allaale wixii gaalo iyo dad kalaba ay kula heshiiyeen iyo muslimiinba cagta la mariyay waad ogtihiin qawaaniintii dawliga ahayd cagta la mariyay mucaahadaadkii oo dhan cagta la mariyay mabaadi'dii islaamiga ahayd lagu heshiiska aha cagta la mariyay wax haray ma jiraan waxa dadku ka socdaa waxa weeye ana ka xoog weyn bes marday ay siyaasadda socotana cidda ugu tabarta daran beeno kamidna hadaan maanta Soomaali midoobin oo dawlad isdifaaci ka dhacaysan dhisin waa la qabsanaya cid u qaylinaysa iyo cid u soo gurmanaysa midna ma jidho ilaahay ka sugo subhanahu wa ta'ala marka cidda wax laga sugayo la leeyahay maxaan ku raahday waxba laga helay waa cidda aynu arkaynay maaxdii adduunyada kumaan kun kamida dhaqankoodu aha inuu gabdhaha yarna inay kufsadaan dawladna hilibkooda ay cunaan dadka aynu naqaano inay xuquuq ilaalinayaan inay mabaadi' leeyihiin inay xorriyad dadka ugu yeerayaan waxa dhaqankoodu u yahay kaaway in badan oo iyaga kamid ay ku dhumeen kuwii gaalada aha dad badan oo magac islaam xambaarsanaana la ogaaday inay shaydaanka kuwa la caabudaan allah musta'aan waxa hareeraheena ah oo inuu wax ka sugayna waxaas way aynu arkayno maanta meesha ay wax marayaan waxba inaysan harin marka inay heshiiyaan siyaasiyiinta Soomaalida xamar isugu tagay oo doorashada ay ka heshiiyaan oo sidii waagi hore u heshiin jireen ma aha inay doorasho dadka iyo shacabka dan oo inay ku heshiiyaan oo shacabku cidda iyagu ay rabaan maslaxadii u jira ay dooran karaan tii waagi hore lagu heshiiyay tii ka horeysay waxay ahayd dadka boob nin waliba isagu kursiga uu ku helayo in uu maxaan ku doorashada ay u dhacdo waxay dhashayna waa waxa maanta aynu marayno waynu aragnay dawladnimada dhashay taynu maanta hayno way kuraasta iyo xildhibaanada la boobo oo ay ku heshiin jireen tan maanta aynu hayno way miraheed mid ummadda u dana oo dadku ay xor u yihiin waxa ay rabaan waa inay ku heshiiyaan laakiin mid iyagu dantooda kursooda ku ilaalinay ku heshiiyaan tan oo kale way maanta aynu miraheeda aragnay waxba ina tarimayso ugu damaynta
waxaan baaq gaar u dirayaa warku waa gaaraya madaxweynaha xasan sheekh eedda ugu weyn maanta isaga ku dhacaysa ilaahay ka cabso subxaanahu wa ta'ala talada dhulka dhig maanta oo kale 22kii warkii uu lahaayo ahaa doorashada dhulka hala dhigo ilaahay ha laga cabsado tii way maanta mid taagan warkaaga maanta taagan talada dhulka dhig ku heshiiya wax dalka iyo dadka iyo diinta u dan ah haddii shirka lagu kala tago taariikhdu waxay qoraysaa cidda Soomaali kala qaybisay oo in la qabsado sabab ugu noqday kow adiga inay noqonayso ilaahayna kaama dhigan leenahay subxaanahu wa ta'ala marka haddii iyagu ay heshiin waayaan waxaan ka codsanaynaa inay dalbaan dad badan oo aqoon-yahanada jira oo siyaasiyiin ah oo culimo ah oo daacad ah oo kursi aan ka rabin talada dadka ha u dhiibeen iyaga heshiisiinaya mar kale waxaan leenahay wixii dantu ku jiro ilaahay waafajiyo subxaanahu wa ta'ala